أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك الحميد المجيد. حسبنا الله ونعم الوكيل. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. aad baan idin salaamayaa, aad baan ummadda barnaamijyada ku xiranay idin salaamayaa dhammaantiin meel kasta adduunka tacaleysa ka joogtaan. waa anoo queen MMS ah, dareemaya caafimaad, anoo dareemaya fudayd, anoo dareemayo maasha Allah fudayd. markaan idin leeyahay culays isaarnaaba iga kacay. alxamdulilah, nimcadaas ilaahay agtiisa ay ka timid, aadana kama imaanin. شيخنا القرآن كان نقول أخريه إلهي سبحانه وتعالى آياتها ويقول أخريه إلهي نقول عافيين. أنا أنت كو عافي ما دايبة الحمد لله يبان لنا هاي شيخنا خير بدن الله سيو. أنا ضدك إيسو دعي دل يدبد بكون لنا وحيد الله هاي جزائد كين جنة الفردوس الله كدقو. أنا واقفي أنا هاي أنت إلي تعيشين أنت حتى حن ستيل وحويان وحيد الله هاي thank you because أنت وناكسن بعكبضن حبد حن مرك حبد داسنا أما وحبا يتكتر سنيان وحبا يكتر سنيان أما عقل قودان كفلنين مرك سكست بهاون نقطة. أنا وحن دريمية عفمات في عن ما شاء الله. وجهي يقول صلابتي الحمد لله رب العالمين. إله بقى مهدا إسكاله إله أود له مركز أركتد سدو أمديس أو أمي مركز أركتد أديكو حد الحنون سنة أم حد عافي ماضي مركز أركتد أديكو عيش سنة أو حد فرح سن مركز أركتد أديكو حد وحبهيسن أو حد وحيسته مركز أركتد أديكو وحكسته أديكو دالنا أو حد النصتي ما شاء الله وحد إيماننا على هذا أو دقناشك وقتلو والحمد لله. wax ilaahay lagu mahadiyo baan ku jiraa, ilaahay lagu mahadiyo baan ku jiraa. ilaahay subxaanahu wa tacaala awoodda iskale baa mahad iskale. anaguna adoomadiisa nahay kuwa ku qanca wixii ay haystaan ama waxay yihiin caafimaadkooda iyo ilaahay wuxuu siiyeyba kuwa ku farxa Allah naga dhigo oo ku qanca, kuwa ku qanca qanaacadu wax ka fiican lama arko. taasi waa midda kale. meel walba wax ka qaylinaysan, meel walba dagaal, meel walba dhibaato, meel walba gabdha isdilaayo waa arkayay, dulmi badan baan arkayay. waxaasoo dhan kolley waxbaa keenaya. marka waxa keenaya inaynu wax wanaagsan isbarno. okay, afka laga hadlo never mind, oo af hadii laga hadlo macna ma lahan. laakiin wadamada westernka xataa Kenya waa wadankeeni ma ahan, waa wadamo ajaanib sharciyadeeda dad baa iska leh. marka dagaalka gacanka hadalka gabdhaha Soomaaliyeed waxa idin kula talinayaa afka ka wada hadla. hadaa rabtaan waxa doontaan isdhaha, inkastoo laga fiican yahay inaa isu samirtaan, haddana hadaa isu samri weydaan waxa doontaan afka iska dhaha, laakiin gacanka hadalka iska daayay. gacanka hadalka aad waliba wabanka qaadanaysaan oo bir iyo waxa doontaan aad qaadanaysaan oo gabar walaashaay oo aad berri heshiin kartaan. walaasha waanta aad diriri kartaan, berri ba heshiin kartaan. gabar kastoo Soomaaliyeed waa walaasha. marka qofkii aad shalayto la dirirtay daa berri heshiisaan oo aad dhibaatooyin fara badan u geysatid ama u geysataan, waliga ayaa laha nabar baa kugu oolaya shalaayaysa. shaydaanku wax badan buu qurxiyaa. marka waxaa idin kula talin lahaa haddii aad xataa diriraysaan ama afka ka wada hadla, dagaalkiinu afka ha noqdo. adduunku waa laga tegay gacan laga diriro. raggeeni baan uga ducaynaynaa inay dagaalkan iyo shidadan iyo qaxarkan gacanka hadalka inay iska daayaan. gabdhaheenina inay maalin walbaba waliba haddana video iska soo duubtaan oo idinku markhaati isku samaynaysaan waa laga qurux badan yahay. aniga waa iga maaragtay waano in aad iska daysaan isku tagga dadka la isugu tagaayo na waa dhibaato oo qofkaas hal qof kaliya wax ma yeelayo, dad badan baad wax ku yeelaysaan. marka dibadaha joogtaan waa in aad xoogaa gabataan. Soomaaliya anigu idima oran karo ko Soomaaliya weligeed ba iska ahayd wadan iska aan gacanta la isu qaadnay ahayd, laakiin wadamadan sharciya loo dejiyay dagaalku ma wanaagsana.
marka waxaad berri ka shalaayeysaan maanta iyo idinku dhicin. waa gabdhaha ku dagaalamaya wadamada aan dalkii Soomaaliya ahayn oo waliba iyagu markhaatiga isku sameynaya ee video inta soo qaatay iska duubaya. shala saaxiib ahaydeen, shala walaalo ahaydeen, maanta waa dirirteen, banaankiina kala mara hadeynaan haddii kale isu soo fariista social media baalaha iska rifa. laakiin gacan in la isugu tagtaan gabar ama walaga qurux badan yahay ha sameynina. wixii hore ay u sameysteen way dhacday, laakiin hadda waxay noqotay gabdhihii UK baan ogeyn, haddana gabdho kale oo Nairobi jooga. marka waa laga qurux badan yahay. maanta kulligiin shalay baa qabtaan, kas waxa ka shalaayeysaan ma soo celin kartaan. idinkaana isa soo duubay, dadka falka geysanaya isa soo duubay. taasina waa tad gabdhaha wastareennada jooga macal Kenya wastareennka ka mid tahay, because wadankeeni hooyo ma joogto. markaad Kenya joogtid sharciga ku qabanaya, newska Kenya la idinka soo daayay. waa dhibaato dad dhan oo intuugadii in laynagu shabadeeyo, in dagaalkii laynagu shabadeeyo, in la inaga naco wadamada waa khalad. waxaan u arkaa inay khalad tahay. baraha bulshada bala baan ku haynaa, waxaan sheegayno cidna ma maqasho, inaga Soomaalida baa ismaqalna. laakiin marka inta live isu soo fariisataan aad meesha isku dishaan dawa loo jeedaa oo waliba idinkii dambiga galaya is duubaysaan. marka iska balacleeyo haddaad rabtaan inaad caydaan, laakiin ayada ruuxeeda inaad iska daysaan ficnaan lahayd. laakiin haddana no problem. taasina waa taas. maxaa cusub? maslax waa ooynaaye. wuxuu ku ooynayay xaaskiisii, wuxuu yiri shiina culay asagu maalin walbaba nin naagtiis ama wiil ay gabar ay kala tageen ama gabar maxaa maalin walbaba eeda korka u suray muusan gabdha shiina culay dhalay. ninkan iyo gabadhan haddii xataa gabadha la caawinayo, shiina culay maxaa keligiis horta hore isaga uga dhigay albaabka gabdhaha la furo? maxaa uga dhigay? annaguba kama helna waxaas wanaaga iyo hiilada intaa le kama helnay. maxaa qasan gabdhaha yararkaa kaliya u heliyaa? shiina culayna carabkaa lagu hayaa, weliba habaara badan iyo dhibaatooyin badan iyo waxbaan arkayay. subxaan allah. shiina culayow adduunkan waxaa dhici karta saacad samadu furan tahay iyadoo lagu habaarahayo inay kugu dhacdo. ninkaas xaaskiisa nin iyo naagtiis colna maaha, nabadna ma aha. haddaa caawinaysa Soomaali weyn la simo oo la mid noqo. laakiin maalin walbaba shalay baa TCK lagugu haystay, maantana tii muxuu magaciisa kii hadda sheegay magaciisa kaasna hadda maanta wuu ku haystaa. marka aniga waxaan ku oran lahaa xoogaa aasha soco, naagaha aan la qabo iyo nimankan iyo naagahooda ka dhex bax. habaarka maalin walbaba meelaha laga habaarayo waa laga fiican yahay. yaa ii dirsaday aniga ruuxayga yaa ii dirsaday social media. dee qofka waad waanin kartaa, inkastoo adeer dhahayo habartaas fii bay igu reebtanaysay oo hadda oranaya fiyu wax kastoo lagu raadsan karaa, laakiin aniga kugu raadsan maayo fiyu. waxaan kugu sheegaya, waxaan arkay habaar badan oo lagu habaarayo, aan arkay oo dad aad ku habaarayo. marka waxaan dantaada ahayn in lagugu habaaro. haddii shifo aad u baahan tahayna dee dadka anigu u malaynaya dadyowgaas la saaran yahay inaad ku jirto, lala socdo. shifo haddaad u baahan tahay iyo duca saarna dee culuma waa buuxdaa, ama kuwaan u tagayba u imow ama kuwo kale u tag. laakiin waxaas ku jirtid waa laga qurux badan yahay. taasina waa tan shiina culay. asxaabay calaa ayati xaal anigu waan fiicinahay, anigu waan ladnahay, waan caafimaaday. ilaahay baa mahadda iskale. maalintii qur-aanka la igu bilaabay wejigu i bedelmay. marka qur-aankii markuu ii dhammaadayna wejigayga sidiisiba kusoo laabtay. alxamdulilah. marka waan salaamayaa. waxaan idinku soo duubay in aan idin tuso inaan caafimaad qabo. dad badan oo waxaa jira jecel inay arkaan inaan caafimaad qabo. marka waan caafimaad qabaa, waan ladnahay, waan fiicanahay. inta ila jeceshihiin baan ahay. waa idin salaamayaa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.